waxaa magaalada Muqdisho si rasmi ah looga daafuray dugsiga nabadda iyo dimuqraadiyadda Soomaaliya oo munaasabad oo uu hogaaminayo wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Maxamed Cabduqaadir Cali ayaa waxaa sidoo kale ka qayb galay wasiiro ay kamid yihiin wasiirka wasaaradda gaashaandhigga, wasiirka deegaanka iyo isbeddelka cimilada, sanataro, xildhibaano iyo mas'uuliyiin kale oo sare. Daafurka dugsigani waxaa ka horeeyay dood wadaagyo bishii hore ka dhacay qaar kamid ah dowlad goboleedyada dalka kuwaas oo diiradda lagu saarayay doorka dhalinyarada iyo dimuqraadiyadda iyo amniga. Doodahaas ayaa waxaa la isla gartay baahida loo qabo in la helo iskuul si gaar ah u qaabilsan nabadda iyo dimuqraadiyadda si loo xoojiyo wacyiga iyo ka qaybgalka dhalinyarada. Hirgelinta mashruucani waxaa fulisay wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha iyadoo kaashanayso hay'adda qaramada midoobe ee horumarinta UNDP taasoo horseeday in si rasmi ah loo daafuro dugsigani muhiimka ah. Wasiirka wasaaradda gaashaandhigga Axmed Macalin Fiqi ayaa si qoto dheer uga hadlay muhiimadda uu dugsigani u leeyahay xoojinta amniga iyo dimuqraadiyadda dalka, isagoo xusay in Soomaaliya ay si weyn ugu baahan tahay labadaasi tiir si loo helo mustaqbal xasiloon. Dhankiisa wasiirka wasaaradda deegaanka, isbeddelka cimilada xukuumadda federaalka Soomaaliya sareeya guud Bashiir Maxamed Jaamac Bashiir Goobe ayaa sheegay in hirgelinta dugsiga nabadda iyo dimuqraadiyadda ay gacan ka geysan doonto dhismaha Soomaaliya cagaaran oo nabad ku dhisan isla markaana kobci doonto wacyiga bulshada. Mas'uuliyiin oo ay kamid ahaayeen Senator Dufle, Wasiir Nuuro Mustafa iyo Xildhibaan Cabdifitaax Qaasim ayaa si wadajir ah u soo dhaweeyay daafurka dugsigani iyagoo bogaadiyay doorka ay ka qaadan doonaan horumarinta dhalinyarada. Ugu dambeyntii waxaa munaasabadda soo xiray wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Maxamed Cabduqaadir Cali oo ka warbixiyay sida wasaaraddu ugu hoolan tahay hirgelinta mashaariic wax ku ool ah oo dan u ah dhalinyarada iyo dalka guud ahaan, gaar ahaan kuwa la xiriiro nabadda, dimuqraadiyadda iyo hogaaminta mustaqbalka. Wuxuuna xusay in dugsigani ay ka faa'iideysan doonaan inta badan dhalinyarada Soomaaliyeed. School of Peace and Democracy markaan ka hadlayno dimuqraadiyadda dad lacag haysta aad u qalday, aad iyo aad loo qalday. waxa loo qaldayna waa dimuqraadiyadda. isbeddel ay keentay, isbeddel ma diido dadka Soomaaliyeed. marka dimuqraadiyaddii haddaan diidno xilki ninkii haya isaga ogolaada, wax kale oo hadda lagu bedeli karo ma jirtay. amiirkii la dooran lahaa oo kii tobanaad dad yaqaana, kii tobanaad oo madaxweyne noqon lahaa 30 sano kadib dad yaqaana horta dimuqraadiyaddan lacag iyo kharash iyo waqti iyo cilmi galshay oo diiday. dimuqraadiyadda ma ahan dhaqan oo diinta islaamka diidayso. Abubakar soo xukun ku imaado waa taqaanaan. annaga marka Soomaali markaan nahay dhalinyarada hadda meesha fadhiso badankeed aan waliba codsaday inay ka imaadaan jaamacadaha si ay wax cilmiyeysan loo gudbiyo, dhalinyarada si cilmi ah wax loogu sheego. wax kamid ah annaga hadda dimuqraadiyaddii waaba dhaafnaba. salaada casir 4 rakaca la dugtaa, haddaad 5 dukato waxa ma aadan sameeynin waxa ku dheeshay. marka hadda waxa noo markhaati ah aan waxaan maleynaa in ay maanta qof dadka meeshan joogo dadka dhalinyarada Soomaaliyeed hogaamin lahaa ugu aqoonta badnaa inay meesha maanta ku jiraan. waxaan rabnaa inay ayaga maanta ka soo qaybgalka ee barnaamijkan ka soo qaybgaleen inay gudbiyaan. dimuqraadiyaddu waa in la isdoorto, dimuqraadiyaddu waa in la isbedelo, dimuqraadiyaddu waa in la is ixtiraamo, runta la sheego, qofka kalaamkiisa lagu ixtiraamo, physicalkiisa nooca uu bini'aadamku uu Ilaahay u sameeyay in lagu ixtiraamo, aan xadgudub lagu sameeyno, xorriyadiisana la siiyo. wax hadda marka annaga hadda haysta presentationka meeshan laga sameeyay waxa ugu muhiimsan oo problem ku ah dhalinyarada Soomaaliyeed waxa kamid ah disinformationka, warbixinta dadka si qaldan in loo gaarsiiyo. annagoo hadda inta taagan dimuqraadiyad ka weyn ma jirta. meeshan waxa jooga TV-ga Shabeelle, warkeenan hadda aan duwayno aan sheegayno uu duubaya uu tabinaya. media judge fiiga waa iska bixinayna, wax uu raban uu naga sheegaya, waana ku qanacsanaa waxa mu ku sameeynaa. adduunka dimuqraadiyad ka weyn iyo meel ay ka dhacday ma jirto. adoo duubaya lacagtan iska bixinaya aanan juuqna ku dhihi karin. waxaa jirtay shirar hadda ka qayb galay oo wadan Carabaha kamid aan aadnay, waa iga maqan yahay Fahad ay la socday. markaan dokumentiyada iyo programka saxiixayna waxa la yiri amiirka ka soo qayb galay kaamir lama ogolo. hal kaamira bisa imaanaysa, halkaas kaamirana sawirka ay soo dhigto idaacadda ka raadsada meesha ka soo qaata soo dhigta. dimuqraadiyadda ma taasa mistan waa horta
annaga dimuqraadiyaddii xoogaa waa dhaafnay waxaan rabnaa inaan kusoo noqono hadda marka waxaan ka codsanayaa 200 oo qof meeshaan ku joognaa ay ka badan ziyaadaan nahay markii la isku daro madax iyo dhalinyarada Soomaaliyeed meesha joogta wax kale oo lagu bedeli karo dimuqraadiyadda ma jira meel inta ku qoran tahay councilkaaga gudoomiyihii degmada oo degmada intuu tago war xaafadeeda qashin ay yaalo xaafadeedii biyihii ka go'an xaafadeeda koronto male wax gudoomiyihii ii qaban lahaa iyo ninkii councilka gudoomiyaha dooran lahaa aan keenaya diinta ma ogolo sax miya diina ku diin sax miya marka waxaan rabnaa iskuulkan anaga aan furayno hor dadka dimuqraadiyadda aan soo celinaynaa maahane anaga dimuqraadiyadda waa dhaafsannahay dimuqraadiyadda anaga waan gudubnay marka muhiimadda iskuulkan uu leeyahay waxa kamid ah in aan wixii aan sheegayno haddaan dawladda nahay iyo haddaan dhalinyarada Soomaaliyeedna ummadda Soomaaliyeed haddaan inaan sheegno wax cilmiyeysan iskuulkan wuxuu ku sheegayaa waxaad xor u tahay waxaadan xor u ahayn wixii aad xor u tahay ka tagtay waxaad tirkaar ma qaadanayo wax ma dooranayo wixii aad lahayd wax xuquuqdaadii asaasiga oo ugu hooseysay oo qofka bini'aadamka u lahaa waa inaad karti iyo kalsooni wax ku doorato oo aad codkaaga waxaaga haysato doorashada hadda Soomaaliya kaarkan hadda la qaadanayo hanti iyo qarash iyo cilmi iyo awood Soomaaliyeed gashay gudi doorasho ajaanib ma aragteen qalab Soomaaliyeed oo qalabkan doorashada waa balnoo diidayaan dadka adduunka qalab la noogu deeqayo qalabkan aad kugu deeqnay doorasho ku qabtay cidahay ma aragteen waxaan hanti iyo xoolo ummad Soomaaliyeed gashay cid kasto imaadana way ku dhaqmaysaa ilaa maxay yeelay hantida ummad Soomaaliyeed lama baabiin karo halkii kaar waa ogtiin dadka ummadda ka shaqeeya kaararka meeqa lagu daawacaa kaarka free lagu soo daawacay kharash Soomaaliyeed waa qarashkiini waa meel ay dawladda ka keentay ma jirto qarashkii ummadda xoolo iyo xoog iyo maskax ummad Soomaaliyeed gashay wayna hirgelaysaa kaararkiina national ID-ga iyo election kaarka waa awoodaha oo qofka muwaadinka Soomaaliyeed ama muwaadinka dunidaba uu leeyahay waay in aad codeyso laguna codeeyo haddii aad damacdo xitaa qof xaafadaada ama familkaaga ka tirsan oo is sharaxo inaad caawisaad u baahan tahay inaad u kaan bengares u soo baxdaa u baahan tahay adigii haddaad kaarkii haysanin maxaad ka shaqayn kartaa marka anagu waxaan u baahannahay horta hore iskuulkan waxa uu muhiimadda saarayaa inuu yareeyo election tensionka xasaradaha doorashada intaysan imaan laga qaado hadday imaadaan xasaradii ka dhashay inuu yareeyo inaa fahamsan tahay annaga dhalinyaro iyo sport maxaa la isugu daray sportiska game la ciyaaraa gameka haddii la ciyaaro ay dhamaato natiijada cid diidi karta ma leh laakiin dood waa jiri kartaa oo arbitrihii maanta anaga oo halkaas gool noo deyn lahaa haddii uu joogi lahaa ciyaaryahan hebel haddii oo 5 daqiiqo lagu sii dari lahaa wax badan oo dooda banaanka looga doodaa laakiin ciyaartii dhacday cidii badisay cid diidi karta ma jirto dimuqraadiyadda siyaasadda saas oo kale noo jeehinaysaa